munaasabadan ururka jimciyadda mujaahidiinta ee Sooyaal ay ku doorteen hoggaanka cusub ee hagi doona 5 sano ee soo socda ayaa munaasabadaasi waxa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi hoggaankii hore ee xilka wareejinayay iyo ergeyda shirweynaha afraad ee jimciyadda ururka Sooyaal iyo mudan lagu casuumay munaasabadaasi ugu horreynkaasi waxa laga akhriyay ajandaha shirweynaha afraad ee jimciyadda mujaahidiinta Sooyaal iyo qodobada la doonayay in lagu ansixiyo iyo sidoo kale waxyaabaha uu ka kooban yahay ajandahaasi waxaana ugu horreynkaasi lagu ansixiyay gudidii hore ee golaha hagida ururka jimciyadda Sooyaal iyadoo markaasi dib loogu codeeyay oo loo doortay inay hoggaanka sii hayaan Xasan Cabdi Maxamed gudoomiyihii hore ee jimciyadda mujaahidiinta Sooyaal ayaa waxa uu ka waramay shirweynaha afraad ee ay xilka ku wareejinayaan waxyaabihii u qabsamay iyo sidoo kale caqabadihii la kulmay muddadii ay xilka hayeen anigu maanta kullay waan soo daadiyay meeshan in badan mujaahidiinta halka fadhiyay maqan intooda badan si fiican bay la shaqeeyeen aad iyo aad baan uga sheeganaya sidaa darteed waxaan oran lahaa mujaahidiintu nin walba oo meel jooga mid ciidanka jooga mid wasaaradda jooga mid bilaa amala mid Sooyaal jooga runtii waxaan oran lahaa dhammaan mujaahidiinta nin kasta uu joogo ha lagu ixtiraamo ha lagu ilaaliyo xafiiskana waxa lagu talagalay inuu mujaahidiintu u doodo oo shaqo la raadiyo ka buka u daweeyo wixii la qaban kara la qabto sidaa darteed markaa maanta anu kulli musharax ma yihiin maanta ninka xilka ka degayaan cidda musharax goobta ay fadhiyo soo dhaxbixi doontaa waxa cod loo qaaday gudoomiyaha cusub ee jimciyadda Sooyaal Cabdirasaaq Jaamac Xuseen Cabdishanaad oo ay markaasi codeeyeen Cotton Ergey waxaana uu halkaasi ka soo jeediyay khudbad taabanaysa waxyaabaha uu doonayo inuu qabto muddada uu xilka hayo anigoo ka faa'iideysanaya waayo aragnimada iyo aqoonta iyo muxuu ahaayay in kartida aan u leeyahay maadaama aan muddo badan aan xafiiskan ka soo shaqeynayay oon joogay ilaa maalintii la aasaasay ilaa maanta waayo waxyaabo badan oo caqabad ah oo ka hor imanaya qof kastoo mas'uul ah ayaan u ogahay marka waxyaabaha iyo caqabadihiina soo maray iyo waxaas oo dhan inaan wax ka qabto ayaan ku dadaalayaa insha Allah oo muxuu ahaayay ay ugu horeyso dadkii dalkan u soo naafoobay ay rasaasu ku jirto sidii wax looga qaban lahaa inaan iyadana qorsheedaan ku darsado dadka waalan ee guryaha jiifa ayna cidna ogeyn dhanka kalena shirweynaha afraad ee jimciyadda mujaahidiinta ururka Sooyaal waxa lagu doortay gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi hagi doona 5 sano Yuusuf Meydal Cumar waxaana doortay 54 ergey waxaana halkaasi kaga waramay waxyaabaha uu doonayay inuu isaguna uu qabto muddada uu xilka hayo marka waxa weeyaan qof ahaan uun baa ina saaran intii dadaalkeena Marwo Yurub Abiib Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa waxa ay bogaadisay shirweynaha afraad ee jimciyadda mujaahidiinta ururka Sooyaal iyo sidoo kale hoggaanka cusub ee loo doortay waxaan farxadda koowaad aan u faraxsanahay Ilaahay baan mahad ugu celinayaa inuu maanta Cabdishanaad gudoomiye ka noqday jimciyadda mujaahidiinta ee Sooyaal asagoo mujaahidkaasi dadkii dalka u soo dagaalamay isla markaana muddo dheer ka tirsanaa isagoo maamulka iyo ahaan golaha hogaaminta iyo aanu ka noqon gudoomiyeenay laakiin uu ahaa dadkii hantida Sooyaal gacanta ku hayay isla markaana maamulkii qaybta FTC-da iyo mujaahidiin kala badan halkan fadhidaaba run ahaantii waqti anigu waa raggii ugu horeeyay ee aan arkay ee ururkii dhaqdhaqaaqii sanam ee aan bartay weeyaan quule Cabdishanaad Yuusuf Meydal ragga kamid ah waxa weeyaan kuwii ugu horeeyay anigu aan bartay weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyihii hore ee jimciyadda mujaahidiinta Sooyaal Xasan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa